السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليغا قاليغا وإذن سلامي دمان ميل والبا الدنيا كجوجتين إلهي ها إذن حفظ الله إذن بركة ومركلة إي ولاشين هود بنتي مختار مسكينتي مساعدات وباهنت داكو عصب تاي جانلكا سبسكرايب كدعس كسي وحما كادي باي لايك تا كومنتي دي رجلينو إيه walaalahayga qaaliga caawa intee aadayna haddii ilaahay yiraahdo qisooyinka iiga barteen mid ka mid ahaa noo wada horta intee aadayna caawa waxaan aadaynaa imaaraadka ani weli ma soo gelin qiso imaaraadka ka dhacday sacuudiga iyo kuwait iyo wax ka dhacay le aan idinla wadaagi jiray laakiin caawa imaaraadkaan tegaynaa insha allah suuriyana waa tegi doonaa haddii ilaahay yiraahdo waxna qisooyinka aan soo wado waxay ka mid tahay qiso oo suuri ka dhacday marka caawa qiso oo imaaraadka ka dhacdaan jeclaystay inaan idinla wadaago na keena imaaraadka aadayna caawadee qisadan waxay ku dhacday wiil lagu magacaabo sii maxamed yacni maxamed aan dhahaa magaciisa laakiin siida waxaa waaye mathalan mudane anagoo isdhehayna camal ama masaarida waxay isdhahaan afandam yacni darajo waaye marka maxameda magaciisa runta ee la dhahaa balse dadka oo maqribiyiinta ee wiilka maqrib waaye Morocco u dhashay dadka oo maqribiyiinta ee waxay ugu wacaan sii maxamed yani qof weyn oo la darajeynayo marka wuxuu dhahay wiilkan ani waxaan ka shaqeynayo dhahay maqaayad ku taalo imaaraadka magaalada shaariqo maqaayad ku taalo oo naag maqribiyad ah ay leedahay naag Moroccan ah ay leedahay naag oo 20 sano iyo ka badan wadanka joogtay oo maxaa la dhahaa isheeg qof weyn ah oo meesha ganacsi ku haysato oo maqaayado badan uga furan yihiin meesha maqaayadaheeda mid ka mid ah ani aan ka shaqeynayo dhahay marka waxaa jiray oo dhahay wiil ani iga yar oo walaalkay ila dhashay aan waxaan ka keeno dhahay maqrib imaaraadkan keenay sharciyan ku keenay shaqeysaan dhahay visa aan u diray shaqeysaan dhahay balse aniga meel kale ma geeyno dhahay isla maqaayadii ani aan ka shaqeynayo le aan dhinac ka geeyay marka waxaa dhacdo yiri subxaanallah adiga muddo oo sanad camal marka uu maqaayada uu ka shaqeynayo walaalkay wax badan aan ka soo horeeyo dhahay marka muddo oo sanad camal meesha markuu ka shaqeynayay maasha allah wiilka waxaan la dajiyo dhahay wiilal dhalinyaro ah qurbaa waxaa waaye waa iska dhib badan yahay qofka haddoo uu family ku ahayn meesha sababtoo wuxuu yidhi aniga naagii ilmaa ii joogaan marka qurbahana waxaa waaye qadaamooyinkoo kaleeto qadaamooyinka qadaamo lay la degan tahay dhalinyaro lay la degayaan qurbaha haddaada xaas ku ahayn oo meel aad deganeen kaligaa waxaa le waaye wax walba sheer waaye waa la isla leeyahay yani qof gooni u degi kara ma lahan sababtoo adiga qof qariib ahaa tahay qof ajnabi ku ahaa tahay meeshaan wadankan adii ma iska lihid yacni noloshaado dhan meeshaan ma ku dhamaysanaysid waa ogtahay inaad wadankaaga u noqonaysid yowmanil ayaam balse ma awoodid yacni sida oo hadda soomaaliya oo kaleeto se aniga aan ugu noolaanayo oo aan guryo uga dhisanayo ama aan gurigayga inuu yahay aan ogahay inta uguma nooli si kastoo wax ugu heesta meeshaan ama si kastoo aan deegaan u ahay maalin kasta geediya ahay waxle meel iigu jiro bacle wax iigu xirayin Soomaaliya u wadaa dharle boorso ku jiraan maalin kasta geediya tahay ma deganid meel hadaa adiga maxaa dhahaa isheeg qariib ku tahay wadankaaga uusan ahayn dalaan dalka ahayn dareen ku joog waa marka daa'iman waxa iska tahay geediya tahay waa ka tageele wadanka ku nooshahay markaas marka wuxuu dhahay dhalinyaraan la dajiyay oo maxaa la isla baxsadaan guriga marka noloshana waxaa waaye meeshaas maasha allah waa laga shaqeystaa shaqo way taala laakiin maciishadeeda aad ay u adag tahay dhahay imaaraadka waxaa waaye guryaha qolqol ma loo ijaaray sariira loo ijaaraa hadday gabdho yihiin oo maxaa lahaa mushtarikiin ay yihiin wax isku darsadeen sariiraha iskor saaran yihiin qof walba sariirtaas oo lacag ka dhiibanaa يعني qolkaan deganahay qadaamo ay waa shaqeysta qolka ijaarkiisa baxsana ma jirto sariirta lacagteeda baxsanay marka waxa dhahay wiilal dhalinyaro ah la dajiyo anigana xaasa ii joogay meel gooni ahaan deganay marka naagtaan oo loo shaqeeyo ilmaheeda ilmo waaweyn waxay u jiraan Soomaaliya jeceliya allah Soomaaliya laga qala anigan wadankeeda u jiraan oo maqrib wadankooda ilmaha ay u jiraan laakiin iyada kaligeeda meel degan guriga kaligeed degan tahay
naag intaasoo sano meeshaan ka shaqaysanayso madcamyaal oga furan yihiinoo kaale iska arag waay yacni maba u baahnaba inay dad kaleeta ay la degto ama ay sheer la noqoto waa qof isku filan waay maasha allah marka waxuu dhahay adi wiilkii walaalkay ee muddo markuu meesha ka shaqeeyay waa fahanye meesha naagtii ha kuu shukaansado way dhali kartaa hau dhahay yacni da ahaan intay ka weyn tahay weynin iska dhaafa wayba dhali kartaa hooye u noqon kartaa ilaa nin hadda wadankii laga keena waa wadankaana ma fahansanee gabadhii oo maqaayadda iska lahayd ha kuu shukaansado waa laysfahmay adiga 3 bilood waxaa laysku ahaay kaale iska arag aniga waa layga qarinooya hau dhahay aniga ma ogi ninkaana aniga ma ila degana ma ila joogo dhalinyaro la joogaa waana nin baledka inuu shaqaysto u yimid anima control hau dhahay nin rag waaye intay u socotaa intay ka imaatay maandhaha waa maya marka wuxuu dhahay habeenkii markii oo shaqada laga baxaaya aniga subaxiyaan shaqada soo galaa hau dhahay duhurkii yacni markii quraacdii iyo qadadii iyo wixii la dhameeyo ani waa baxa hau dhahay asaga wuxuu imaana hau dhahay bacda duhurkii u imaanaa duhurkii markuu imaado ileen badaalkiisa ninaaba la keenay naagtaa keentay anigana ma ogi u dhahay ninkaasaa shaqeynaa ani habeenkii ma shaqeeyo dhahay gelinka horaan shaqeeya gelinka dambena gurigeyga aadaa badaalkii oo maxaa lahaa walaalkay oo shaqeyn lahaay waxaa la keeno dhahay nin kalaa la keenay asaga inaagta waa la israacaa gurigeeda la aadaa wuxuu ku dhahay abow hellow 2 habeen 3 habeen dhalinyaradii maba la seexanayo ma imaanayo aniga telefoon la iskala hadlaynaa subxaan allah waxaa dhacdoo yiri muddaa la joogay adi 3 bilood camal sidii saas loo ahay bilihii ugu dambeeyey aniga wuxuu dhahay aan ka shakiya calaaqadooda markaasaan waxaan dhaho yiri yaa mustaf maxaa idinka dhexeeya adi inaagta maqaayadda iskale laa wallahi wax naga dhexeeya malaho dhahay khalaas yacni ani waxaa oo dhahay qof shaqiil ah qof shaqaysta ahay mees shaqaalaan ka ahay shaqadeeda akiid cajibisay wuxuu dhahay inaagta mudiiradeyda waa intaa u tag walaalkay maxaa kaala dhexeeya ma dhihi kariyo dhahay waa ka xishoona ceebna waa dhahay waxaas inaan weydiiyo cala kulli xaal wuxuu dhahay aniga walaalkay naagta waa uga shakiyey haddii aan weydiiyo dhowr mar aan weydiiyana wuxuu dhahay wax naga dhexeeya malehe ha igu mashquulin waxaa isdhahoo yiri dhalinyaro le waaye ama intoo uu iskala qosqoslay caadi ay banaankaas la iskala qoslooyeen waa la joogay ilaan calaaqa jaddiya ahaaba ka dhexey marka wuxuu dhahay si maxamed se arrinta saan u aheedow dhahay oo mustafa aan uga shakinaaye maxaa la dhahaa inay naagtan wax ka dhexeeyaan wuxuu idhahoo yiri maalmo badanaa marka uu soo daaho dhahay mustafa soo daahaya shaqada oo kasoo daahay nin kala imaanayo waqtigiisi nin kala imaanayo aniga waqtigaan baxay walaalkay soo gali jiray nin kalaaba imaanayo badalkiisa marka ani naagta maba weydiino dhahay asaan telefoon u diray markaasaan waxaan dhahoo yiri fiiri see wax u jiraan ma ogid miya ani shaqada waa iska dhaafay see iskaga dhaafto dhahay shaqada adoo ani ii sheegin markaasuu dhahay ma rabo wiilasha dhalinyarada aan la deganahaya shaqadaas ka fiican iigu maqan intaan shaqada ka helaayana maxaa la dhahaa isheeg gurigaan joogaa ma rabi maqaayadda inaan ka shaqeeyo markaasaan waxaan dhahoo yiri mustafa wax kaleetaa jiree wixii jira ii sheeg shaqada waxaas iskagama dhaafine ma shaqada maa dhibsatay naagta maa wax ku tiri mase naagta cilaaqa idinka dhexeyso qalaas ma kuu shaqeynayo maa dhahde war wax naga dhexeeya ma laho dhahay naagta mana rabiib shaqada walaalow ma iqasbay ani markaasoo dhaha maya ma ku qasbaay khalaas waayahaan dhaho yiri marka maalmihii dambe waxaan arkow dhahay marka aniga shaqada ka baxo oo ninka badaalkiisa ahay oo mustafa badaalkiisa la keenay markuu yimaado aniga aan guriga aado casiradii camal waxaaba imaanayo dhahay mustafo adeeg noo wado ilmo adeerku u yahay ilmahayga usoo adeegayo kaale iska arag maasha allah marka wuxuu dhahay maalmihii dambe aaday u badato dhahay ziyaaradiisa waa noo imaanaa waana soo salaamaa ilmaho usoo adeegaa guriga wixii ka dhimanoo keenaa aniga shakiya ay galay marka mar walba wuxuu dhahay aniga waa la sheekaystaa telefoonaan kula hadlaa markuu yimaado gooniya ula baxaa warniyahow see wax u wadaa intee wax kaa soo galooyin shaqo ma haysid madcamkii waa iska dhaaftay nin oo wadanka ku cusubaa tahay wax badan ma joogtid see wax u jiraan wadankiina yacni waqti aa fahantid wadankii maba joogtide maya aniga wiilashaas dhalinyarada horta shaqo iigu maqan waxna waa iska helhelaa waxa aan shaqaysanayane wax waa ka heystaa war waxaa shaqaysanaysa wax ma kaaga dhimaa meesha imaarada la dhahaye shilinka kusoo galo isla markii kaa baxayo wax ma kuu dhaqaaloobayaane walaalow see wax u wadaa maya wallaahi caadi le
calaa kulli xaal sida loo ahaayo dhahay oo loo joogay ilaan wuxuu dhahay aniga maba ogiya naagta wuxuu ka ballan qaaday inuu guursanayo marka wuxuu dhahay asaga waa ku guursanaa laakiin si maxamed inuu ogaado ma rabo waa sira isku guursanaynaa misyaaray dhahaan carabta qodbasirada misyaara isku guursanaynaa kadib adii dhowrkoo bilood markaa isqabno anaa si maxamed u sheegaayo marka naagtaa lacagta ku daldaloysou dhahay maasha allah wuxuu dhahay ninkii asagoo shaqaysaninoba taajir ah aniga 12 sano beledka joogay oo maqaayad leh ka shaqaynayo halaho walaalkay heesta ma heesti waxaan ka walwalsano dhahay walaalkay waa yar yahay ma guursanin wiil dhalinyaro 20 jir ah waaye ma guursanin in naagtan ay ka aqli badiso ay lacag indhaha uga rido oo guursado ilaa naagta mustaqbal ma u noqonayso way dhali kartaa taasaa ka walwalooyaa hodha ninkaana naagta guurooba ka ballan qaadaba inay isguursanayaan kadib dhowrkoo bilood markay isqabaan aniga la ii sheegi rabo calaa kulli xaal waxaa dhacdo yiri markii oo ii sheeg muddadii ay ku ballameen la gaaray ninkan lacaguu ka qaatay naagta wuu xawishay maqribo u xawishay lacag fiicanuu ka qaatay maqribo u xawishay waqtigii guurka ala soo gaaray hello sanad ii bar camalow kuu joogaaye 6 bilood oo sanadka ka koraysanay naagtan uu saaxiib la ahay oo intaas maxaa dhahaa saayiraaye oo been u sheegaaye oo soo jiidanaaye naagtina waa jeclaatay wiilka wuxuu sameeyay dhahay intuu ka baxay waa u tagay horta labadoo habeen oo gurigeeda soo seexday dhalinyaradii aan wacay telefoonkiisana wuu dansaday marka ani walwala igalay oo dhahay dhalinyaradii aan wacay waxay dhaheen ma ogid miya adiga laba habeenba ma soo hooyanin maxaa ma kuu sheegin telefoonkiisa waa xiran yahay wallaahi ma naqaana meeshuu ka baxay laba habeen soo mooyeen walaalkaa waxaan dhaho yiri maalmihii ugu dambeysay intuu aaday intuusa ka shaqaynaya intaana wax inay intuu kasoo galayeen marka wiilaa jirow dhahay oo xoogaa ay isfahmeen marka wiilasha aan la dajiyeyna waxay iskugu jiraan oo dhahay maqrib waxay iskugu jiraan wiilal afrikaan adi way badan yihiin oo dhahay dhalinyaro badan waaye marka mid afrikaan ay iska fahmeen oo dhahay oo mustafa ay isfahmeen marka kiya marka aan weydiiyo dhahay niyow see wax u jiraan adiga ma ogid miyaa naagta maqaayadda iskale iyo walaalka inay saaxiiba yihiin saas moo iskaga dhaafo saasoo iskaga dhaafo maqaayadda markaasaa wuxuu idhaho yiri wallaahi labadaa habeena meesha inuu jiraa u malaynaho dhahay sababtoo telefoonkiisa xataa waa dansanyaa adigu wuxuu dhahay maalmihii dambo يعني لبا هبين كبعد نين كان وصل لابت تليفون كيس وشيدا واس مقلني وانا u sheego dhahay aniga waxa dhan inaan soo ogaado inuu naagtan saaxiib leeyahay inuu maxal ahaa sheeg oo la sheekaysto wixii oo dhan waa soo ogaada iyo lacagtan faraha badan meesha uu ka keenooy sax waayo dhahay walaalkeygiyo naagtan waa shukaansadaa waa la sheekaystaa 6 biloodna idan saaxiib la ahay maalinkii aan shaqada iska dhaaf ilaa ay haddana iyada wax isiinaysa ma fahamtay marka waxaan rabtaa inaan guursado anigana ma rabo inaan guursado waxa rabaa inaan maqrib u laabto dib ma lahan dhaho yiri maqribkaaga iskaga laabo wiil yaraa tahay mustaqbala u baahan tahay naagtan weyn mustaqbal ma ku noqonayso wadankaaga iskaga laabo qalaas saasa isku ogeen marka wuxuu yiri waa u tagaa waa u dayrinaa ma fahantay si deganaan wax ugu sheegaa aniga ii dhaafo dhahay si maxamed wuxuu yiri qalaas waayahan dhahay adi waa laga socdo yiri ani shaqadeyda iska watay maalmaa ka soo gudbay wuxuu yiri fajatan marka aniga waa ku ogaado dhahay markaan calaaqadooda waa isku ogaaday hadaa aan telefoon u diro ma joogo guriga naagtan jiraaho idhaha ama waa joogaa guriga dhalinyaradan joogaa yani markaan walaalkay meel ku ogaho dhahay laakiin naagta ma oga inaan aniga ogaaday waxaa dhacdo yiri fajatan maalin dhan awa xal waayo dhahay walaalkay subhanallah dhulka ma dhunji dhalinyaradii malahan iyadii alla wacay waxay tiri aniga ma arkin wiilkii maalinta kale maalin saddexaad 3 maalin waa la waay meel oo cir iyo dhul oo galay wiilkii mustafa ahay waa la waay أعوذ بالله وحوير أنا والول ناكتي وحوضها شكل طبيعي محل لها إيش مقايد يا إيمانو يسأني مقايد واكشقينو يا صبح يا دان داوم واجوكتا وحوضها ويلش لنيرد إهد ويلكي واواين ناكتي
gurigeeda maxaa dhahaa ii sheeg qof ma joogto sababto haddoo oo walaalkay oo guriga jooga iyada ma ay shaqo imaan lahayd waa yaabo dhahay 3 maalin cir iyo dhul teleefon male wiilkii male waa la waay xataa wuxuu dhahay waxaa aaday mustashfiyaadka aado dhahay isbitaalada aaday waxaa aado dhahay saldhigyadan tagay meel kasto wiilkii waa la waay maalinkii afraad oo dhahay ilaahay amarkiisa ilaahay afkeyga wuxuu ka keenay walaalkay adoo calaaqa kula lahay meesha maxaa la dhahaa geysay walaalkayna sheeg dadka cuntahay dhahday ani ma ku dhahay walaalka calaaqa la lahay walaalkay asaa ii sheegayna calaaqa la lahayd 6 biloodna saaxiib lahayd intaan oo maxaa la dhahaa madcamka oo iska dhaafayna adoo kula joogay oo saaxiib kula ay ku shukaansanay waa jirtaa dhahday waa shukaansanayna ha laakiin qof weyn oo socdo aniga inta ku qarina yani waxa miyahay dhahday alaab meel la gelinayo miya walaalka raadsay dhahday خلاص waxaan dhaho yiri maxaa aadayna saldhiga waa ku dacweyna walaalkay adikeen markii ugu dambeysay walaalkay adoo ku soo socday waana ku imaaday ma ku sheegay inuu ani ii soo socdo ha gurigayga laga soo baaray خلاص wuxuu dhahay ani saldhiga aan tagay waa balaaqa aan gudbiyo dhahay wiilkaas iga maqan meel jaani cirib dhigayna ma naqaano markii ugu dambeysana naagtan oo gurigeeda aaday wuxuu dhahay naagtan gurigeedaan tagaa naagtan iyo walaalkayna calaaqa ka dhaxaysay wuxuu dhahay ilaahay amarkiis maalinkaas aniga aan soo dacwoonayo gurigeeda joogta oo dhahay waxay fadhidaa saalada fadhigay fadhidaa albaabkay naga furto dhahay aniga oo askar wato aan gurigeeda tagay aniga askar oo isla socona gurigeeda tagno dhahay albaabkay naga furto dhahay wallaahi barti ay ka soo kacday ee ku laabato dhahay tartiibkeeda meeshay fadhiisatay markaas waxay leedahay fadalo guriga baara soo raadiya mustafa cunug miya yani alaab miya xataa cunug lama qarin karo guriga haday wax ku jiraan soo baara meel kasta haddii laga baaray si kasta haddii la yaalo guriga la futagadiye aasaar dhan male xataa hal shay asaga uu leeyahay guriga ma dhex yaalo waa iskarti waa iska baxeen aniga wuxuu yiri ma ideynin shakigi walwalki ima deynin waxaan dhaho insaanta lama ahan walaalkay iyo dhul meeshuu aaday naagtaan maahane qof kaleeto og malahan imaaraad afarteeda gees shaariqa afarteeda gees meelaan laga raadinin male wiilkii maqrib uma laabanin dhalinyaradii lama joogo naagtii lama joogo wiilkii dhulka maa dhanjiye calaa kulli xaal wuxuu dhahay waa ka hari waay qisadii khalaas iyadana wuxuu dhahay ewelba markii oo iyada meesha oo maqalka oo lacagta lagu qabanayo ewelba ay fadhiin jirto dhahay nina marka ka bedeli jira markay iyada guriga aadayso ninkii hab joog ayaanta shaqo maba imaanaysabo isbuuc mustafa ma lahaayo aniga wuxuu yiri shaqadii waa iska dhaafe waxaan ku jiraa wuxuu dhahay baadi goobka walaalkay nin oo waxaa la yiri hal ka maqan tahay hangoraf oo gacanta geliyaaye wuxuu yiri walwalki waa igu batay meel aanan ka raadinin in si aan wax yeelin malahan wuxuu yiri markii dambe waxaan dhaho yiri askarti aniga waxaan ka shakisanahay naagtaan marka waxaa la dhaho yiri kuwa oo wax fatashayo maxaa la dhahaa ii sheeg maxaa laga dhahaa Soomaaliya CID ma ahayd kuwa wax baarayo ala lagu daraha dhahay guriga naagta leh haddana lagu noqonaa marka hal askariya waxay oga dhigto dhahay ninkan gurigan wajada ama waa la dilay gurigaana lagu dilay oo waa la duugay aadii kaleeto gurigan maahane meel kaleeto kuma dhamaanin yani askari waxay oga dhigantoo yiri guriga naagta inuu walaalkay ka soo saaro walaalkay wuxuu yiri inta laga soo saarayo maba jooge ilaahay markiis wuxuu yiri waa ku laabanay adiga 2 maalin aan tagnay maalinkii saddexaad oo ugu dambeysay oo asaarka walaalkay la heli doono dhahay sidii la albaabka leena laga furooyo oo dhahay naagti kibirka wuxuu yiri sankay ka hadle albaabka leena laga furooyo meesha la ku noqonaysa waa fadhiisanaysa marka mid oo halkaas askari oo dhahay naagtana oo uga shakisanahay ninka haddii naagtan leeb ay saaxiib ahaayeen oo markii ugu dambeysay naagtana aado oo dhahay naagtan la sheegaysa meesha ka baxay marka wuxuu dhahay naagti wuxuu dhahay fiiri adiga iyo mustafa maxay idinka dhixay saaxiiba ahayn caadi kullu buruud ay dhahoysa caadi qof oo xataa cabsi yariis xataa kuma jirto saaxiiba ahayn waa sukaansanayne
haye calaaqadiin intay ku dambeysay wallaahi markii igu dambeysay maxaa la calaaqadeen waa kala dhamaatay qof walbana jidkiisa oo iska maray yani waa la kala socday asigana dariiqiisa uu raacay anigana dariiqayga raacay mustafa asagaa wuxuu igu dhahay guur diyaar uma ihi nagu kala wad guur diyaar uma ihi nagu kala wad moo ku dhahay haa marka waxaa jirta u dhahay askarta madbaqa baarayso kuwa oo fadhiga baarayo kuwa jiifka baarayo midaa marka wixii mindi ahaay qaado wixii guriga yaale oo jikada ku jiray oo dhan meesha soo saaray oo dhan oo hal u baaroy yacni waa la urinaa dhiigaa laga urinaa waa la sawiraa adiga waxaa loo baaraa how dhahay gurigii alaabti dhexdeeda madbaqi doolaabta wixii ku jiray armaajada dhulkaa lasoo dhigay ilaahay amarkiis kii marka oo dhahayo walaalkaa gurigaana oga shakisanaya kii dhahayo oo aniga waxay ila tahay naagtan walaalkaa la waaye inay iyada calaaqa ku leedahay waysmadiisa iyada inay calaaqa ku leedahay meeshay ka ridaybo iyadaa meel ka riday midka dhahayo naagtoo la sheekaysanooya marka midaa wuxuu sameeyey marka galofisa la gashanaa ma ogtahay geedihii afka lagu xeranaa wixii waa la baaraa waa la sawiraa qofka xataa hadda horumaraa la gaaraya qofka hadduu asaga isgubay ama qofka la gubo daawo lagu shubaa jirto oo lagu kala ogaanayo meesha sawirayso subxaanallah waa la hormaray gamarkaa la qabsaday annagoo kale ma aha afrika ay hurudooy marka wuxuu yidhi askarigii baaraya maacuunta dhexdeeda wuxuu arkay qalaadada oo si fiican wuxuu u rakisoo dhahay qalaadada oo qudaarta lagu shiido qalaadada marka bir ku dhex jirta birta oo wax jarjarayso shiidayso bir ku dhex jirto qalaadadiyaa la furfuray waxaa laga arkay geedkii oo saan wax loogu fiirinayo waxaa laga arkay jaabyaaris oo ilig jabkeed ah qalaadada laga dhex arkay wuxuu yiri khalaas kii oo naagta la daldalmaya waa la wacay marka kaasaa mudiir oo ugu weyn waa loo wacay waxaa la yiri waxaana qalaadada ku arkay marka waxaa lahay dabiib sharciya la geynaa yani dhakhtarkaa la geynaa waa lasoo baaraa qalaadadii jabkii iligta ahaa laga bixiyay waana jab yariisa xataa isha aan si fiican u arkayna u qabanayna yariis waa la qaaday adiga waxaa bacaa lagu riday waxaa la geeyey dhakhtarkaa la geeyey waa lasoo baaraha lahay intii laga soo baarayana waa la wagafinaa naagtan yacni saldhigaa la geynaa maxaa lasoo ogaaday ilaahay amarkiis waxaa maqli jiray ijaakilmood yaa taarika salaa marka waxaa lasoo ogaaday inay iyada ay dishay mustafe sababtoo ah iligta waa iligtii mustafe balaayahashada inkaarti dhuusa weynay qabtaaye cunugii way dishay wayna jarjartay qalaadayna ku shiiday yacni madaxii horta intay geysa madaxa lagaa gooy waxay samaysay wixii oo markay shiiday ay dishay ilaa asaga wuxuu dhahay ma ogtahay kuma guursanaya aniga bas waa noqonaa maqribaa u noqonaa marka kaama yeelinay tiri marka asaga u sheegaya arrintaasna gurigeeda u joogaa markay dishay ay kow ka siisay ay jarjartay waxay samaysay way shiiday wixii oo iyada maxaa la dhahaa ay sheegeen u shiidmay masqushay ku shubtay yacni xamaamkay geysay lafihii iyo madaxii iyo waxaan burburayno bini aadana leeyahe anaga insaanana laf iyo uus iyo caloola leenahe acuudu billaahi min shaytaan rajiim ilaahayow hanaga soo adeejin bal arrintaasoo kale ka waran ilaahayow subxaana wa tacaala ilaahay qof naguma ibtileeyay alaa laa ibliina hal dhaha waxaa dhacday iligta inuu asaga leeyahay markii lasoo ogaaday iyada waa la xiray iyadoo baduun cabsi ee waxba ka cabsanayn ee kulli shay ictiraftay waxay sheegtay yacni way qiratay qaladkeeda waxay tiri anaa yeelay waa dilay waana shiiday waana baabi'iyey lafihii iyo wixii iyo waxaan adiga aan ii shiidmaynina yacni bac subaaladan ku aruuriyey subaaladan geeyey saasay wax u jiraan waay sii maxamed wuxuu dhahay aniga waa ku dhufan rabay oo dhahay acuudu billah yacni bini aadanka qof dil yacni inkastoo ilaahayba oo banaynin inaa qof muslin ee aad dishid oo dhiiga xaaraan yahay acuudu bikalimaatillahi min shari maa qalaq
waxay dhahday maxaa lahaa ii sheeg wallaahi aniga xataa qisada ka sheekeynayo waa isku naxsanahay bismillaahi raxmaan raxiim ilaahay naguma keeno waxay dhahday aniga waa idiiday calaa kulli xaal waa ilaahana igu qaaday waa dilay cunugii wuxuu yiri aniga haddii walaalkay oo malakameed u imaalahay dadka dhan waa dhimanayaan kullu nafsan daa'iqatal mawt malakameed u imaalahay ama ay gacanteeda oo sababsan lahaayeen intay disho xataa meedkiisa la heli lahaayeen duugan lahay laakiin qof bini aadan oo inta la dilay la jarjaray ee la shiiday adduunka intay ka dhacdo dhahay xasbi allah wa nicmal wakiil marka waxay dhaheen anaga waa naloo dilaa sababtoo ay ayaga isku jinsiyad waaye naagta waa naloo dilaa haan dhahno dhahay si maxamed wiilka ka sheekeynaya qisada walaalkay qisadaas ku dhacdo dhahay ilaa u naxariisto wuu dhintay mustafa la dhahaa marka wuxuu yiri anaga isku jinsiyada nahay maqriba isku nahay wadankeena dawlada ka jirto يعني وانا لو دلا حتى هدي او ودنكينا لو غدبيو دها او naagtan la wado oo wadankii la geey wadankii aan wada tagno anaga ma cafinayn waana loo dilaa waxaana la dhaho dhahay maxaa la idin kugu sameeyna naagtan imaaraadkay ku xirantoo dhahay wali waana loo dilaa aan dhahno dhahay iyada waxba muu aragta hal idila hal idaayo ala kulli xaal waxay dhahday aniga ciilkii aan qabay waa idaaye ninkaasna si kale oo oga argoosto waa waaye dhahay marka asxaabtayda qaaliga anigana qisadaas aan jeclaystay inaan idin la wadaago aniga ajraamka iyo dilka iyo waxaas inaan ka sheekeeyo ma jecli wallahi subhanallah marka waxaa idin leeyahay aad u mahadsantiin walaalahayga qaaliga ee fadlan ha iga iloobin subscribe-ka like-ta iyo share-ta wax ma ka dhibaysay